Cajaa'ibta istikfaarta, qisadii ninkii foornada iyo Imaam Axmed ibn Xambal. Imaam Axmed ibn Xambal ayaa habeen magaalo guura ku soo galay. Masjidkii magaalada ayuu ku sunaystay, kadibna wuxuu damcay inuu iska seexdo. Waardiyihii masjidka ayaa ku yidhi, meesha maxaad ka qabanaysaa? Wuxuu yidhi, waan seexanayaa. Wuxuu ku yidhi, halkan in la seexdo looguma talagelin. Wuxuu yidhi, bal aan saacado yar seexdee iska kaydaa. Si walba wuu yeelay, wuu ka diidayse. Ninka waardiyaha ah ma ogeyn inuu Imaam Axmed yahay. Imaam Axmed masjidkii wuu ka baxay, wuxuuna seexday albaabka hore ee masjidka. Waardiyihiina kama harine, wuxuu ku yidhi, ka kac meesha. Kadibna wuxuu ku tuuray bannaanka hore iyo jidkii la marayay. Waxaa arkay nin rootiga duba oo aan imaamka garanaynin. Wuxuuse aad uga naxay xaaladdiisa. Wuxuu ku yidhi, aniga ayaad caawa marti ii noqonaysaa oo gurigayga ayaad seexanaysaa. Imaam Axmedna wuu ka yeelay wuuna raacay. Ninkii rootiilaha ahaa wuxuu iska bilowday shaqadiisii. Markii uu wax cajiimayaba wuxuu yidhaahdaa, astakfirullah. Malaha wax boqolaal gaaraya ayuu inta uu cajiinka wado istakfirulaystaa. Imaam Axmed arrintaasi way soo jiidatay. Wuxuuna ninkii rootiilaha ahaa weydiiyey, waqti intee la eg ayaad sidan ahayd? Wuxuu ugu jawaabay, sannado badan. Wuxuu haddana weydiiyey, wax miro ah ma ka heshay istikfaartaas? Wuxuu yidhi, haa, wax kastoo aan Ilaahay ka baryo waan helaa marka laga reebo hal shay oo aanan weli helin. Imaam Axmed wuxuu ku yidhi, oo muxuu ahaa shaygaasi? Ninkii wuxuu ku jawaabay, Ilaahay ayaan ka baryay inuu Imaam Axmed ila kulmiyo, iimana suuroobin. Imaam Axmed wuxuu yidhi, Allahu Akbar, ducadaadii waad heshay. Anigu Axmed ibn Xambal ayaan ahay. Ilaahay ayaa ii soo kaa jiiday oo ii kaa keenay. Qisadii intaa ayay ku soo idlaatay. Haddaba walaalayaal aan badino istikfaarta si aan ugu liibaanno.